arrinta ID-ga la samaynayo waxa weeyaan horta inaad mid fahantaan weyn ID-ga la samaynayo looma samaynayo dadka Soomaaliyeed iyo in al-shabaab lagula dagaalayo in security lagu sugayo maahan ID-ga la samaynayo waxa weeyaan qodobka koobaad in East Africa lagu biiro waa in wadanka ku biiraya uu leeyahay national identity qof macnaha ID card inuu leeyahay weeyaan waxaan soo akhriyay Uganda waxaan soo akhriyay Congo waxaan soo akhriyay Rwanda waxaan soo akhriyay Burundi marka arrinta laga lahaa arrintaas ahayd oo loo samaynayo markii arrinta la sameeyo waxa Soomaaliya la yiraahdo Hargeysa iyo Muqdisho ama Koonfur iyo Waqooyi ayaa Soomaalinimo noqonaya wixii ka soo hara waxay noqonayaan Ethiopian iyo Kenyan waa the same way oo hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda jirta iyo waxa TPLF soo diyaarisay iyo Jomo Kenyatta laga soo bilaabo waxay soo wadaan waxa weeyaan in NFD-na la reebo oo laga saaro saaxadda iyo sheegashada Soomaaliya ogaadeena laga saaro sheegashada iyo Soomaalinimada oo markii arrintan hadda ay dhacdo oo kaarkan la sameeyo maanta la samaynayo waxay noqonaysaa jigjiga in laga samro waxay noqonaysaa in laga simro erer waxay noqonaysaa in laga simro shilaabo waxay noqonaysaa in gaarisa laga simro in wajeer la hilmaamo faraha laga qaado aan mardama aan ka doodin mardama aan adduunyada loo sheegin dad Soomaali degan yihiin intaas weeye muhiimadda sheekadan waxa weyn oo kale iyo maaragtay aabahay baa wuxuu ahaa maxaa la yiraahdaa Axmed Gurey wuxuu ahaa Karanle iyo that's not the issue annaki waxa weeye qarankii Soomaaliyeed ayaa dumahaya qarankii Soomaaliyeed ayaa waxa weeye maalinka si dambaysa waxa weeye la sii jeexaya la sii goosanaya dadku inay fahmaan weeye arrintaanu waa arrin saameyn doonta mustaqbalka boqolaal sano dhalan doonta ciyaalka Soomaaliyeed jiirarka Soomaaliyeed haddaan maanta laga hortagina waxay noqon doontaa wax aan kulligoon oo dhan ku dunno aad iyo aad baad mahadsantihiin والله بالله ما شاء الله عبد العني سو ودنها بيجويسبه وابا اسكو نخايبه inaan kala go'naa u qaatabo hadalka عبد الناصر ويا عبد الناصر aad baa u mahadsantahay عبد الناصر oo inta dad maanta iyo xal aan dhageysanay qofka xaqiiqada ka hadlo u soo dhawaado waaba adigaba wallahi wax macquul ah waana aqoonyahaninta oo nooga jawaabi karaan Caraali iyo Dr. Geele in kaarka la suubinay Afrika lagu daro Soomaali saas ku baabaado kuwaana Itoobiya qaataan wiligeena saasana laga ribi jiray marka noomaadi ku soco waa maasanta inta rabeen aan yarkii hore oo dhaw maadsan yahay waxaan rabeen aan dhaho in la inaga dhaadhiciyo jiritaankeena inay mataqaana ay ku xiran tahay inaan East Africa aan la mid noqono ayaguna ay ahaayeen dadkii ka dambeeyay jabkeeni kana faa'iiday jabkeeni markaan lageena ku istaagayna noqday inay naga dhaadhiciyaan in la jirkan la jirna ayaga ay danta guud tahay macnaha waa inaan taa xasuusano way horta innaga cid uma baahanin innagu mataqaana waddankeenu babasi yahay mar kasta inuu aadna mataqaanaa inuu ku noolaa mataqaanaa nolol fiican ganacsi ugu fiican baan leenahay ninka Soomaalida dadka wadamada joogta inaa ka nolol fiican marka inagoo qani inagoo wax kasta aysan population yar yahay waddankeenu weyn yahay in hadda la naga dhaadhici markaan mataqaanaa hawshii soo gabagabeeyna waddankeenu far soo noqonay hadii la yiraahdo jiritaankeenu ama faa'iidadeenu ama mataqaanaa jiritaankii iyo wax kastaba in lagu darmado qodan macnaha East African community bay macnaha danta ku jirtaa waa khalad sababtoo ah ninka cadawga ku ah inaan martaqaana markaad lugaha ku isad inaad mataqaana uu raaligelintaada mataqaana aad usud geeska kaa soo galay aad iska ogolaatid yaa khalada ma fahanteen ummadda Soomaaliyeed way gubatay way baabaaday qalbiyan aan ka dhimanay waddanka innaga iskale dad yar baan nahay innaga aan ku raaxaysano innaga aan ku boodboodno oo ma baahnin cidno ma fahanteen hantida naga soo gashay shidaalka ama beerahana maantana yaa kun jeer naga badan afaatay baa malay marka waxaan rabaa inaan soo kaliya innaga inaan cid kale u baahnin jiritaankeena alla mooyee cid kale uma baahnin East Africa tiraahdo Europe tiraahdo wallahi waxaan aaminsanahay inaan macala Europe marka hore Talyaaniga waa deganaa meesha 20,000 oo Russian deganaa Mareykankii baa deganaa fiisaheeni Mareykankii maana Afrika ragii oo ka sheegan Afrika bari ninka Mareykanka imaade ka badan ma joogi karo waddanka waa inuu ka baxay soo laabtay ma fahanteen marka waxaa ogaataan adduunku inuu fiirinayo nin kasta wuxuu rabaa inuu naga qaato marka inaynu wax reebana weeye maalinta nin baa wuxuu ka hadlayay Ethiopia mataqaana inay hanti macnaha dhaqaale ahaan kor u kacday koronto zaid u badan East Africa oo dhan la isku dar ka badan ay sameynayso markaas codka kaaga go'ooyo nomadic mise ana maqlaynin suurtagal waa walaalku waddan ku jira suurtagal hadda ma maqashaa hadda si fiican hadda ma santahay nomadigo abo codka kaaga go'ooyo adoo raaliye